waxaan jeclahay inaan ku soo koobo kelimadaydan hal xadiida iyo hal aayada. xadiidku waa xadiidka ku sugan saxiixulbukhaariga. wuxuu leeyahay nebiga sala allahu calayhi waaalihi wasalam oo saxaabadiisa la fadhiya oo wacdinaya oo wax u sheegaya ayaa 3 nin soo qaabileen. 3dii nin ka mida muusan soo leexanine wuu iska sii socday. ka labaadna labadii kalaa soo galay masaajidkii. labadii markay soo galeen midi meel uu ka galo safkii loo fadhiyay meel uu ka galo waayay gadaal buu iska fadhiistay. midina meel buu helay oo uu soo galay. 3dii nin buu nebigu faalleeyey sal alla alayh wasalam oo faalle ka bixiyey. wuxuu nebigu uhi sal alla alayh wasalam ninkaas aan soo leexanin oon khayrkiiyo wacdiga ku soo leexanin wuu jeedsaday, isagana ilaahay baa ka jeedsaday. acrada fa acrada allahu canh. khayr meesha yaallay iyo wanaag iyo wacdi ayuu san danayninoo isaga tegay, isagana ilaahay baa aan danayninoo isaga jeedsaday. kii labaad oo gadaal fadhiistay nebigu wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam istaxyaa faاstaxya allahu minhu. wuu xishooday, isagana ilaahay baa ka xishooday. dadka inuu cidhiidhiyo iga durug inuu yidhaahdo waa xishooday. hadduu xishoodayna isagana waxaa lagu abaalmariyey in ilaahay ka xishooday. kii soo dhowaaday oo safka soo galay nebigu wuxuu uhi sal alla alayh wasalam awaa fa awaahu allah. khayrkii buu u soo dhowaaday, isagana ilaahay baa soo dhowaaday. khayrkii ayuu u soo dhowaaday, isagana allah baa soo dhoweeyey subxaana wa tacaala. xadiidkaa waxaan u keenay inaynu fahanno khayr meel ka socda oo cilmi sharciga ah oo majaalisu dikri ah oo ilaahay laysku xusuusinayo adoo u baahan, haddana haddaadan danayninoo isaga tagto kolba saaad u dhaqanto buu ilaahay kuula dhaqmayaa. taa waxay tilmaamaysaa meelahan oo kale lagama tago. kulligan waa u baahannahay in layna wacdiyo. nebigeennaa la wacdiyahayay sal alla alayh wasalam oo qur-aanka intaa wacdi uu ku imaanayaa nebiga la wacdinaya sal alla alayh wasalam. hadduu nebi maxamed wacdi u baahnaa yaa ka maarmo waay. kulligan waa u baahannahay, sheekh, caamay, culimo, kulli wacdiga waa loo baahaya. waxaa la yidhahdaa majaalistan oo kale waa majaalis dikri iyo khayr iyo cilmi iyo wanaag. meesha la fadhiyana sidii laynoo sheegay waa masjid. ilaahay tabaaraka wa tacaala arrimaha noocan oo kale agtiisa waxay ka leeyihiin mudnaan khaasa. idaa ra'aytum riyaada aljannati fartacuuha. majaalista dikriga. aayadda aan ku labaynayo waxay tahay markaad wacdiga timaaddo ama darsiga timaaddo ama cilmiga timaaddo inaad ka faa'iidaysatood nafci kala tagto iyaduna shuruud bay u baahantahay. dadka qaar baa fadhiya laakiin markuu ka tago maadaa qaala aanifan buu leeh. maadaa qaala aanifan, war mar dhoweyd maxaa la lahaa? wadaadka dhadhawaaqiisa waa maqlahayey, muxuu lahaa? dadka qaar noocaasaa jira. haddaba inaad ka faa'iidaysatood intifaacsato iyadana waxay u baahan tahay jidkeeda iyo dadaalkeeda. iyadaana waxaan soo qaadanaya aayadda qur-aanka alla yidhi markuu ka soo sheekeeyey qiyaamada iyo ahwaasheeda iyo axwaasheeda iyo
bini aadamku siduu noqon doono allah wuxuu yidhi tabaaraka wa tacaala inna fii dalika ladikraa liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahiid sida uu leeyahay ibn al-qayyim alayhi rahmatullah ayadda waxaa ilaahay ku ururiyay asbaabta keenta ruuxu inuu intifaacsado waxa uu maqlayay loo sheegay waxay ka kooban tahay afar qodob qodobka koowaad waxa weeye shaygii qalbigaaga wax ka bedeli lahaa ee ku anfaci lahaa horta waa inaad hesho inna fii dalika ladikra quraanka la tilmaamaya iyo wixii laga soo sheekay marka mu'athirka ku saameynaya ee noloshaada iyo qalbigaaga iyo saameynaya waa quraanka waa waxyiga kow kaasi waa mid ruuxa uu saameynaya wax ka bedelayana liman kana lahu qalbun waa inuu qalbi leeyahay waa inuu qalbi leeyahay qalbi waa la wada leeyahay oo aadamaha kulligii gaalkiisa iyo muslimka qalbi way leeyahay laakiin qalbigan waxaa laga wadaa qalbi khaas waxay culimadu leeyihiin qalbi nool waa inuu kugu jiro qalbiga nool waa kee waa qalbiga iimaanku ku jiro hadduuse qalbigaaga iimaan ku jirin uma diyaarsana markaa inuu waanada qaato aayadda kale waa ilaahay ku sheegay tabaaraka wa tacaala fa ina adikra tanfacu almu'miniin waanadu waxay anfacdaa mu'miniinta dadka qalbigoodu nool yahay marka qalbi nool waa inaad la timaado waa weelkii wax kuu geli lahaayeen waanadana kuu qaban lahaa haddii aadan haysanin waad fadhin laakiin wax la'aan baad kici laanna wixii kuu geli lahaa oo dhan weel dabada ka duleelaa meesha ku yaal weel dabada ka duleela maantana haddii biyo lagu shubo muu qabanaa wax alle wixii loo sheegay oo dhegtan uu ka maqlay ta kalena waa ka baxay saas daraaddeed liman kaana lahu qalbun qalbi isticdaad diyaarsan nool waa inaad meesha la timaado waxaa xiga aw alqa as-sam'a wuxuu leeyahay awdani bimacna alwaaw waay wa alqa as-sam'a oo macnuhu waxa weeye markaad waanadii baa timid qalbigiina waa diyaar haddana waa in dadaal lagaa helo waa inaad dhegta raariciso waa inaad isku taxallujiso waa inaad dadaal la timaado haddii aadan dadaal la imaanin oo attentionkaaga iyo dareenkaaga kulli aadan qaabilinin ayadana intifaacsan mayso ilqaa'u as-sam'i walladina jahaduu fiina lanahdiyannahum ilaahay wuxuu addoommada wax ku siiyaa markii iyagu dadaal la yimaadaan marka waa inaad dadaalkii la timaado waa inaadan wax kale ku mashquulin waa inaad dhegaysiga iyo muxuu ahaaye ku dadaalidda iyo inaysan waxba kaa fakanin waa in ilqaa'u as-sam'i maqalkaaga dhan waa inaad riddo waa inaad siiso waa inaad waxa kale ku mashquulin oo dhan meesha ka saarto haddii aadan dadaal la imaanin dhegaysiga oo dhegta uu kaaga dhacdhacayo ayadana ma intifaacsanayso waxaa u dambeeyo shardiga afraadi uu yahay aw alqa as-sam'a wa huwa shahiid shahiid maxaa laga wadaa bimacnaa shahiidu lqalbi xaadiru lqalbi waay qalbigaagii diyaarka ahaa haddana waa in uu joogo maxaa laga wada waa inuu joogo qalbigaaga adoo fadhiyo meeshan yaa laga yaabaa qalbigaagu inuu maqan yahay soo suurtagal maa nin baa salaad ku jira salaaddii intii lagu jiray ganacsiguu kala xisaabinaya nin baa laga sheegay salaadda markaan galo unbayba xisaabtu ii saxantaa buu yidhi say iiga qasan tahay markaan salaadda galo unbay isugu kay hagaagta marka haddii aad salaadda dhexdeeda ku ganacsanayso oo majaalista cilmiga dhexdiisa ku ganacsanayso oo aad xagga kaga jirto muxuu ahay fadhiku-turkii sheegadiisii ku jirto oo siyaasad ay qalbigaaga ka buuxdo maadadhan aad kala rogayso ood kursigii sidaa hedab loga ridi lahayd adiguna aad u fuuli lahayd aad ku mashquulsan tahay waxaad tahay joogaa maqanaata soo ma jidhkaagii waa nala joogaa laakiin qalbigaagii waa maqan yahay
sidaas daradeed markaana waxba intifaacsan maysid ayadaasi marka wuxuu yidhi waxay ururisay asbaabta intifaaca in wacdiga la intifaacsado shaygii intifaaca keenayo waxyigii qur-aanka iyo sunnadiya talabaad oo ruuxa intifaacsanayo inuu qalbi nool leeyahay hayo ta saddexaad inuu dhagaysto oo dadaal bixiyo ta afraad oo ah inuu qalbigiisu joogo oo uusan maqnayn inta inaynu la nimaadno aan isku dayno saynu insha allahu tacaala fadhiga iyo duruusta baxaysa intifaac ugala tagno nolosheenna wax ka bedela insha allahu tacaala waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu